بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan ku sugannahay Federation Square magaalada Melbourne ee waddanka Australia. waxaan halkan u joognaa maanta oo ah 1 July oo ka mid ah maalmihii xorriyadda ama xornimada dalka Soomaaliya oo aan qorsheynay inaanu halkan Melbourne ku qabanno munaasabad lagu soo dhaweynayo maalmahaas qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed xaggooda qiimaha kale. maanta waxaa halkan la soo saaray calanka Soomaaliyeed oo lagu taagay magaalada Melbourne taasoo tusaale u ah in mataqaana calanka Soomaaliya inuu yahay calan jiro dawlad jirto ummad jirto oo xorriyad qaadatay muddo laga joogo 61 sano taasi sharaf weyn bay noo tahay. waxaa muhiim ah waddanka Soomaaliya waa waddan barwaaqo ah u baahan kaliya dad inay midoowaan isu yimaadaan oo horumar gaarsiiyaan. waxaa farxadii ah inaan maanta kala soo qayb galo aan qayb ka noqdo dabaaldegga maalmaha xorriyadda 26 iyo 1 July oo wadajirka Soomaaliya. waxaan ka mahad celinayaa qabanqaabadii jaaliyadda khaasatan gudoomiye Faarax Warsame oo maaragtay fursadan qiimaha badan soo abaabulay iyo dadkii isaga la soo shaqeeyay aad baan uga mahad celinayaa. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga rajaynayaa sanadaha soo socda kuwii dib maaragtay isu kaashado oo u walaaloobo in ay noqdaan in ka badanna in uu sii jiro dalkeena iyo dadkeenana isu soo hiloobaan Allaha ka yeelo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan shanta qaaradood ee adduunka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo. Soomaaliya 1 Luulyo yeenan dhinac hoosna uga degin sababta waxa weeye hadayna hoos uga degno meel fool xun bayna geenaysaa. marka waxaan idin oranayaa kula dardaarmayaa 1 Luulyo adkeeya waa maalintay Soomaali dhalatay saqiir iyo kabiir ilaa haddana aanu ku jirno United Nations International Community inay noo aqoonsan yihiin. waana waxaan leeyahay in alla inta Soomaaliya joogta iyo dareenka laga dareemay caasimaddu ay ugu horeyso iyo gobol kasta oo dabaaldegayna hambalyo u dirayaa Soomaalida gaar ahaan reer Australia khaasatan reer Melbourne hambalyada gudooma waana mahadsantihiin. Soomaaliya ha noolaato. halkan oo ah Federation Square oo ah meel iconic ah oo magaaladan Melbourne iyo waddanka Australia ba caan ka ah ayaanu waxaanu surnay ilaa 8 calan oo calanka Soomaaliya ah oo sida aad arkaysaan gadaasheeda ka babanayna. waana markii ugu horeysay waana runtii maalin taariikh ah oo taariikhda Soomaalida halkan Australia ku nool ku suntan. hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto 1 Luulyo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya. waxaan marka hore ka salaamayaa dadka soo qaban qaabiyay xafladdan iyada ee dabaaldegga aan ugu talagalnay 1 Luulyo maalinkii Soomaaliya xornimada ay qaadatay gaar ahaan gobollada koonfureed iyo midnimadii gobollada waqooyi. waxaan leenahay hambalyo dadka Soomaaliyeed dadka soo qaban qaabiyay gudoomiyaha jaaliyadda Mr. Faarax ugu horeeyay waxaan leenahay waa mahadsantahay. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Prime Ministerka Soomaaliya Roble Cabdi Xaashi, aqalka sare Mursal, golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo aad ku dabaaldegaysaan sanad guura wacan. waxaan mar labaad munaasabadan kala qayb galayaa jaaliyadayda Australia ee dalka Soomaaliya sida sharafta leh aad maanta uga soo wada qayb gasheen oo aad u muujiseen qarannimada Soomaaliyeed iyo maalintii Soomaaliya inaad isugu timaadeen Federation Square of Melbourne. sidoo kale waxaan u diyaar garownay inaan ka taagno markii ugu horeysay calanka qaranka Soomaaliya magaalada Melbourne oo aad gadaasheeda uga jeedaan sida aan uga taagnay calankeenii oo dhan. mudanayaal iyo murmooyin waxaan idinkugu dardaarmayaa haddaad tihiin dhallinyarada Soomaaliyeed iyo Soomaali weyn meel kasta aad joogtaanba inaad gacmaha isqabsataan dalkiina iyo ummaddiinana isku mid aad ugu shaqaysaan. qarannimada Soomaaliya meel fog baa laga keenay dhallinyaro u soo dhimatay waa inaynu inagu dhallinyaro raggaan ila taagan waa dhallinyaradii Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinayaa walaalkeen Cabdisalaan oo runtii u garab istaagay maanta qarannimada Soomaaliya
munaasabadda soo socoto oo kowda luuliyo insha allah naguna casumay dhammaantayo. السلام عليكم مقعي ومحمد حسين أبو بكر محمد حربي وحنا جوجنا فدريشن سكوير سنتر كمقالة هلكن وماشى أقول سحمد بدن جدها مقالة ملبون وحنا نقول دعين أما كده عين جدها درك أستراليا مقالة ملبون أيام ما أنت كدعي ما أنت يكون بيجنت يكون لولي ما أنت حرية ده ميدو قال لبدا قول وغوي كفر أيام واحد نصور تقشي إن هلكا وكبب عالن كيجا هوي الصوماليات وحرق أقول دعي ما هندرك أستراليا إيه مقالة ملبون أنتي كسر شقيسي أنتي تبد أنت هالك كداونا سبا وحنوجوهم بليانا يا مناسبة ما أنت كود لوليا بريئوها ما أنت معانا وحن مقالة كده عيسى حلفت تي وجوه وجو قيمة بدنات الأرض كود لوليا ما أنت وحوي وفرحات وإلهي مهديس وحن نحتاجنا هاي فدريشن سكوير أو سنتر كمقالة ملبون يعرق أستراليا وحوي وهيستوريك داي مانتا وحوي مالين فرحات ويه ومالين تيجوه الرئي عالنك الصوماليا لقد احتاجي مقالة أستراليا أفرتن سنة كذب وحنو مهد علنا يا دتي كسر الشقيي وجوه الرئيو قدوميها شاليد الصوماليا فارح والسماء أدي أدبو مهد سنة هاي وحنكلو مهد علنا دان يرد كقيب قادتي لكن لا الشقيسي وحن لي هاي هابي اندبندنس داي صومالي والله هلا قوض الشقية من الماء الصوماليات. بسم الله الرحمن الرحيم. جيك ما أنت تسولنا ميل راي مالنتي حرنمل الصوماليات أو كباعن بالله جولاي كوتي أو مالنتي صومالي حرنمل قادتي وقوي يو كونفرنس كدار من ومستقبل بقول لهدوم ومستقبل بقول يو لهدومتي إلى ما تيجي جيك ما يروح نمجال اللي رو ملبون قدرك أستراليا جالي الصوماليات أكنول ملبون يا ودنك أستراليا يا ميل راي حسكون أنت كدقدي ما يبوها كفرحنا إني أنا كله كيف قال ما يبوها مالين تحريد الصومالية ذو كل يبقى مدري هرنمد اللي قبي دبعته ده هماري والأوجي ما يبغى إلهي كرجينا يقول ميل راي يقول دلك الصومالي هتصل أي كفيل لين مركل إن الناس كقوين الصومالي إن نبتيه برواقي دولة شرف له أو دلكي هنا ده صو دلك أمان إيو والويل بديل سياسة إن إلهي نديرسي هرنمد إن تام ما أولي أنتي أونو يتوي دلك نبتجلي هم كجرت دولة ديسنا سدأت أو ميل راي سياسة حال يسدي أي هذا بدنا دلك هاي سد ما يبغى إلهي كرجينا إن سنة كون سنة يقول دلك أنت كفيل لين نديرسي وعندي شيء يا مانتا أو أيتهاي كودي لوليو لبعض كون يكو يا لبعضك وحن كم إذا كون يا سجال بقول كنتون يا عفرتي أنا أو مركز 8 سنة كذا أيام وحن كذا قريب قال أو عرورة أو 8 سنة كلية كذا أيام وحن كذا قريب قال في شو غوفرنو مركي عالنك الصوماليات يا عالنك الطليانية يا عالنك يونايتد نيشنز كا لساري أو أول مركو هوري طليانية كلية سارة ديتنا وها كرلو ساري كونية سجال بقول يلحدن يا عفرتي وحن كلو تاجنا كونية سجال بقول يلحدن كي على السار كي رنتها كودي لوليو يدنا وان تاجنا وحن كلو يدين شيء هذا أنت كده بيسأل واتشوق وانولا الحمد لله رب العالمين وحن إلهي أمد الصوماليات وقبرية إن قف والبؤ الصومالي وعلن كيسة احترامه علن كيسة مالين تيسة علن كمالين تيسة ودريال وولاتشيو وحن انتاس أما هذا شو أما أول وقت اللي شو هذا سيدا وما أنت وحي نوتا هاي فرحد وين وأنا كل سنة مالين تأن حريتك كقادني دولة دي تليانية كوني سجال بقول يلي هدفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne in aan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo maalmaha xorriyadda oo ah 26 Juun iyo 1 July waa 61 sano ayaa hadda ka soo wareegatay waxaan rajaynaynaa insha Allah in Soomaaliya ay noqoto ama noo hagaagto
annaguna iyo carruurteennuba mustaqbalka dhow aan dib ugu laabanno Soomaaliya ama ugu yaraan aanu halkan ka tagno waddankeenna ku noqonno oo aan soo booqanno mar walba aad baan idiin salaamayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Melbourne ku noolna dhammaantood waxaan oranayaa waad mahadsantihiin inta hadda ka soo qayb gashay oo mas'uuliyiinta ah oo halkaan timid sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkay Madaale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh